وحساك مقالة اللاس عنود حرونتا قبل كسول شير جرايد ku qabtay cuqaal iyo waxgarad ka tirsan deegaankan cuqaasha iyo waxgaradkan iyo helada nin dhawaantan maxkamadda dawladda Puntland ee magaalada Boosaaso ay ku xukuntay dil toogasho helada dadkan ayaa waxay ka codsadeen dawladda Puntland inay ka fiirso dilkan maxkamadeed ee lagu fuliyay ninkan dhalinyarada ay soo ka soo jeeda xarunta gobolka Sool gooreen halkaas waxa ka hadlay Caaqil Axmed Wolif oo kamid ah cuqaasha waaweyn ee gobolka Sool ka idaacadu sheegayeen oo idaacadaha ka sheegay oo yiri dil baan ku xukumay dilkaasu inaanu ahayn sharciga uu wataa sharci nadiif oo xalaal oo kii dadka lagu leeyin jiray oo ka dhaxeeya Soomaali weyn ama ka dhaxeeyaba hartiga ama ka dhaxeeya kitaabka Qur'aanka ah munassalka ah ahkaamta aan qusay oo ah mid lagu ijaabto oo lagu siyaarto oo lagu shaqaysto oo been ah oo aan karmaha u joogo dhinacna u dhaafay nimankaas halka uu ku xukumay naba xuseeyo ninkaas naba xukumo diinna kuma xukumo dadnimana kuma xukumo tolnimana kuma xukumo islaamnimana kuma xukumo wax naga dhaxeeya ma jiraan waxa uu dadka u yeerayaa ee dambiga ah ee u yeerayaa maanta ka dhigtay siyaasad been buu ka dhigtay siyaasad شبابك قاطع الطريقة أرجع حسده بضع البلاد بدع الدامية ولا كتر والله اللي قلت حتى أدون وينه إسكاب الداي وحده وحويه وقام لقى يسووا كل شيء نحن ذيك كتيرة ما كان بكرة صومالي كان مال تمام مدحوينه هيدي وحد جوغان لاس عنود يا كوا كان وحد جوغان برعو عيبay ka soo gudbaan waxay ka soo gudbaan boohoodle halkaas ay galgala ka galaan anigu waxaan qabaa jabigeedaba waxa galgala jooga iyo waxa uu sheegayaaba ee isagu ka waramayaaba de isagaaba la socdo meel ku dadka uu xidhanayaan dad shabaab iyo waa caruur uu ka qabsaday iskuul bay qaarkood halkan ka dhiganayeen jaamacad ay ka dhiganayeen warwadaygu wuu waray horta qabta maxkamadda ku xukuntay dadka yaryar ee aan aqligooda ku filna hadii xitaa qaarkood loo hanjabayo yira waxda masuuroobaso waxaanu u raacnaa birtii ninkii halka wax laga yaro ciise maxamuud aanu raacnaa jaacsiyaad ay qabatay waxaanu u qabanay waxa bari ka socda ee ila furana uu ka wado ee ummadda isku dilayo ee marba wiil uu baabuur kala degayo ee uu ku magacaabayo waa shabaab waxaanu leenahay ummadda Soomaaliyeed maxamed harti wixii ku abtirsada shabaab aniga halka ii saar madaxa meeshaad ku qabataanna ku googooye haddaba ragga uu maxkamadiisa saaray Boosaasood ee uu yiri qoladaasi ka tirsan yihiin ee alla berbereeyo ma ahaanu leenahay shaqara kuma leh waxaanu ka hadlaynaa waxa isagu uu sameeyo uu ku reebayo ummadda kale ninba nin ku bedelayo kuwa horaayna faroole laga hurda dadkuna waa isyaqaan dad wada dhashay baanu nahay tol baanu nahay محمد هرتي وراءنا هاي سنة غير كاسو كرش سيبر هيك اللي يا عيسى محمود يعني درس كنا هاي وراءنا هاي اسكو تشوفه ما نور بولا تاجن هاي وراء وقاله نور ولا عبد الله حسن وحي قاعد ولا بوحي جيس التيراد قاعد ولا بوحي جيس التيراد وحن عالم كوشيجنا أو كدادعنا أو تصينا أرهمها أو بيري شري هذا يعني لقبنا إن كدر غاضبين رجع ويسوي سكحرتي يدلك كو حكومي نمبر نكو بدلايو محكمة دي سنة قنصنين دتكو واه هير با الله حساب تميا waxa isagu hoosta ku haysto lacagta uu doorashooyinka ku doonayo badaha looga shaqeeyo Soomaalida oo ka dhaxay waxaanu caalamka u sheegaynaa inaan arrimaha ka dulqaadan waxayna faroole sameeyay walaal ku noqon mayno danana inaga dhaxayn maayaan Cabdi Kariin nolol S24 TV xarunta magaalada Laas Canood ee gobolka Sool